علي عبد الديره oo muddo 8 sanadooda ka soo mid ahaa golihii deegaanka ee degmada Berbera isla markaana dhawaan dib loo doortay doorashadii dalka ka qabsoontay oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera oo maanta wareysi gaar ah ku siinayay magaalada Berbera telefishinka Star ayaa ugu horeyn waxa aanu wax kaga weydiinay tababarkii dhawaan loo qabtay xubnaha golaha deegaanka ee degmada Berbera magaalada Hargeysa loogu qabtay iyo waliba waxyaabihii lagu baranayay aad iyo aad baad u mahadsantahay waa su'aal aad u fiican horta marka horeysa seminaarka waxaan ka soo faa'iidnay wasaaradda fara badan oo dowladda dhexe ah baa joogay wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda hawlaha guud adoo ilaa 10 wasaaradood oo GPLG-ga ayaa ku joogay qof kasta role buu leeyahay golaha deegaanka role buu leeyahay wasiirada arrimaha guduhu role bay leeyihiin wasiir kasta tobanka wasiir joogay midna role buu leeyahay xeerku wuxuu ka siinayo maanta waxa seminaarada role naloo qaban jiray kaga duwanay annaga qoran naloo qaban jiray seminaarka wasaaradii waxaan xaq u anagu leenahay dhageysan lahayd may joogi jireen oo way ka maqnaan jireen goobta laakiin anagoo waajibaadkayga waxbarashada caafimaadka biyaha waxaanu qaabilsanahay anagu garanayna baanu soo noqon jiray laakiin wasaaradihii ay nala joogin halka kana lagu dhigayo maanta waxay tii hore dheeray tobanka wasaaradood ee goobta fadhiya goluhu wuxuu xaq u leeyahay bay dhageysanayeen iyagana loo sheegayo meesha lagu dhigayay annagana tii aanu xaq u leenahay ayaa la dhigayay xeer baa jira tobantir la yiraahdo golayaasha deegaanka ku shaqeeyo xeerka iminka waa waxbaa laga yar bedelay laakiin xeerku barigii hore wuxuu ahaa xeer waqti la siiyey aqoon ku salaysnaa aad iyo aad u dhisnaa qof kasta wuxuu roorkiisa leeyahay qayaxay iminka meelo badan buu leeyahay aan muujinayn goobihii wax badan ay ka qaldan yihiin taana waxa kaliifaya golihii iminka khadka ka baxayay ayaa de macnihii degdeg oo ansixiyay taana wixii ka qaldan waanu qornay seminaarkaasaan ku gudbinay in wax laga bedelo oo la saxo taana insha Allah waanu ka shaqeynaa waxaan ka faa'iidnay wax aad iyo aad u wanaagsan علي عبد الديره oo ah gudoomiyaha gudida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada Berbera oo aanu wax ka weydiinay hawlaha shaqo ay qabteen muddadii dib loo soo doortay iyo waliba waxa uu qorshaysan ayaa sidoo kale ku jawaabay sida tan Liban Ali Abdi Dheere waxa jirtaan inaad tahay gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ee degmada Berbera hawlo badan ayaa idin yaala ka gudi ahaan gudida aad mas'uulka ka tahay ilaa ay imika muddadii dib loo idin soo doortay maxaa dhaqaajisay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وارن وسؤالنا aad iyo aad u muhiima wuxuu horeeyay dhaqaajiye waxa kamid ah arrimaha bulshada ka bilaabay gudiyada xaafadaha shanta xaafadood baan ka bilaabay gudoomiyaashooda xogayaashooda ku xigeenadooda dhalinyarada qaar kamid ah waliba xaafadaha dhalinyarada qaar baa ka maqnaa laakiin aduu sax xogayaha ku xigeenka gudoomiyaha in badan baanu wada sheekaysanay ka wareysanay xaafadahooda qolo walba xaafadooda iyo marxaladooda caqabadaha hor taagan iyagana wada shaqeyn wanaagsan ka soo ka bilownay imankana insha Allah shirarka kala badanna waan noo harsiin waa qabanaa insha Allah ilaahay nafteena daayo علي عبد الديره oo kamid ahaa xubnihii golaha deegaanka ee degmada Berbera muddada 8 sanadood ee hore isla markaana ahaa xilligaasi ragii diidanaa inuu meeyarka noqdo meeyar Cabdishakuur Maxamuud Xasan doorashadii dhawaan la doortayna ahaa ragii ugu horeeyay sida weyn ugu ololeeyay isla markaana dib u doortay ayaa waxaanu su'aal ka weydiinay sababtii uu hore ugu diidanaa iyo sababta uu hadda dib ugu doortay meeyar Cabdishakuur Maxamuud Xasan cidin isagoona tilmaamay sababaha uu dib ugu doortay marka uu horeysa doorashadii hore waxaan ahaa xildhibaankii koobaad ee Cabdishakuur kursiga inuu fulo diidanaa baan ahaa markii la doortay 12 mudana doortay annagu ilaa 5 xildhibaan oo wali ka soo jeeda deegaanka bariga Berbera barnaamijkaanu fadhin markii la doortay ila doorasho waa haldheeri weeyii la doortay waa la shaqeynay waa la garab istaagnay maanta waxaan ku raacay ee ugu dadaalay anigu inuu fuulo kursiga waxa ka ah Berberadaas ku muuqata adaa soo dhaxmarayay Berbera wuxuu Berbera ka qabtay ilaa ummad baan u dhaartay waxaan u arkay inuu u mudan yahay kii fuuli lahaa maanta kursiga ee ku soo noqon lahaa waayo halka hore markii hore
siduu halkaa uga qaadabaan ayaan u taageera. geesta kale cali cabdidheere waxa uu fariin u diray xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera ee iyagu ka fikir duwanaa markii ay dooranayeen mayor cabdishakuur maxamuud xasan isagoona tilmaame ka bixiyey in laga yimi xilligii ololaha doorashada kursiga maayarkana uu hadda ku fadhiyo mayor cabdishakuur maxamuud xasan waajibna ay ku tahay xubnaha golaha deegaanka ee degmada berbera inay si wada jira ula shaqeeyaan. 13 xildhibaan fadhigii noogu hor fadhigii labaad fadhigii lagu doortay fadhigii labaad 13 xildhibaan oo dhamaayay waa isku duubanahay waxaan u arkaa inay la shaqeynayaan garab istaagayaan iyagana waxaan kula talinayaa haddii wax jiraan inay garab istaagaan sidaan u garab istaagna markaa. maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV berbera.